daawadayaal waxaan joognaa goobtii lagu qabanayay baroor diiqda loo qabtay gabadhii dhimatay Allah u naxariisto hodan xaashi oo si xun loo dilay saad la maqasheen magaalada Saskatchewan lagu dilay marka halkan waxa isugu yimid Soomaalida reer Toronto oo dhan iyo magaalooyinka kale oo ku hareeraysan alla isaga yimid si baroor diiq loogu sameeyo haatanna waxa ay la taagan gabadhan oo ka soo qayb gashay dadkii ka soo qayb galay aan wareysanaya walaal magacaaga iyo bilow marka hore ruqiya walaal maxaa halkan u timid maxaana ay arintan maxay kula muuqataa ama sidaan hadda arintan dhacday oo dadka isugu yimaadeen maxaan ku soo kordhin leeyahay adiga waxaan rabaa Allah u naxariisto walaashay hodan xaashi reerkeedana ilaahay samir iyo iimaan Allah siiyo maanta wallahi waxaan ka xumahay inaan waxaan isugu imaanay laakiin waxa weeye wax oo very important ah inaan support markii joogna gaarto inaan aniga dhan isku garab istaagno oo tusmo support keena especially in this situation gabadhan walaashan maadaama qalad laga galay and she was murdered inuu la runtu wax laga hadlo waayo she was murdered after lagu dilay and aniga I runta fiican wallahi billahi war dhiig baa keena meeshaaniti iyo just absolute heartbreak for the family waxaan dhihi lahaa as a community inshallah we have to do a lot more to be louder we have to do a lot more to be supportive and we have to show our pain adiga maadaama qof dhalinyaro ah tahay oo aad ogsoon tahay gabadha adiga gabar da'yar ahayd adigana qof dhalinyaro da'yar aan ku arkaa marka da'yarta dhalinyarada ah oo sidaas loo dilay maxaad shucuurtaada maxaad dareemaysaa adiga ahaan sidee kula tahay gabar adigoo kala ah oo wax baranaysay oo maaragtay gabar firfircoon ahayd sida la sheegay in qaabkaas loo dilo sidee kula tahay horta walaahi qof dhan in qaabkaas loo dilo waa qalad it was very inhumane ko anigana qof ma yari laakiin waan yaraa hodanna waan ahaa 22 waa soo maray ilaahi baa og sheekadeedii storygeeda gabadhaasiitu wallahi it could have been any of us today it could have been anybody today and it really breaks my heart in a video laga duubay oo la arkay ilaahay dambigeena dhan noo qariyo we are gathered here today on a very sad occasion I understand but wallahi what breaks my heart more than anything today is the fact that the support that I was expecting and the people in the Somali community that I was expecting did not show up today they did not show up today and the truth of the matter is as a Somali as a person who grew up in this country, as a person who has seen problems herself, we keep getting into these problems because this community does not show up when we need them. They do not. They do not show up when we get killed. They do not show up when we get arrested. They do not show up when we need tutoring. They do not show up when we need help.